أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku ballansanayn in aynu qayb labaad saddex qaybood aynu ka dhigi doono haddii aan la yiraahdo barnaamijkan marka kani waxa weeyaan barnaamij oo daba socda kii hore oo su'aalo badan ka yimaadeen oo kii hore macnihiisu ahaa qaabka ay moobilada ay u shaqeeyaan marka waxaan jecelahay inaan su'aalo badan oo ka yimi awgeed in aan qeexo xiriirka ka dhexeeya moobilka iyo towerska xiriirka ka dhexeeya intaynaan towerka specifically u sii gelin ayna toos sii dhexgelin iyo xiriirka uu sameeyo noocyada shucaaca sii daayo electromagnetic waveska frequency-yadiisa waxaas intaynaan gelin oo qaybtii labaad ee barnaamijka waxaan jecelahay inaan in yar aan raaciyo maanta oo su'aalo badan ka yimaadeen su-aasha ugu badan ee ka timid barnaamijkii hore waxay noqonaysaa xiriirka ka dhexeeya moobilka iyo towerska ama sidee ayaad u ogaan kartaa towerka tooska ugu xiran moobilka saaxiibka ama qofka aad la hadlayso waxaan jeclahay waraysta inaan sheego waxaynu sheegnay cell towers wax la yidhaahdaa waxay leeyihiin asalba waxaa jira goob ay isugu yimaadaan oo center u ah oo mobile switch center la yidhaahdo ama MSC la yiraahdo ayaa jira MSC daasi oo loo soo gaabiyo mobile switching center kaasi waxa uu macnihiisu yahay مثلا marka aad telefoon aad doonayso inaad iibsato telefoonka aad iibsanaysaa waxaad gelinaysaa kaadhka aad gelinayso markaasi waxa uu leeyahay goob aad ka iibsanayso oo la yiraahdo mobile switching center oo ah macnaheedu central point ay isugu yimaadaan towers cell tower fara badan ay isugu yimaadaan oo xiriiriya sidaa darteed markaad iibsato sim cardka waxaa ku register garaysan dhammaan macluumaadka goobta aad ka iibsatay ama MSC-ga aad ka iibsatay macluumaadkiisa MSC-ga goobta aad ka iibsatay kaadhka laftiisa waxa uu leeyahay goob center oo ah oo halkaad ku arkaysaan kaadhka soo saaraysaa kaadhka waa lagu soo saaray waa lagu switch gareeyay dabadna mobilkii ayaa lagu geliyay taa macnaheedu waxa weeyaan halkaas centerka MSC-gaasi waa home-kii aad ka iibsatay kaadhka macluumaadkiisa markaa maxaa kugu qoran surface plan waa code goobta aad ka shaqeynayso aad ka qaadatay kaadhka iyo kaadhkaasi macluumaadka ugu duubnaa locationka kolba aad tegayso oo isaguna mar walba si automatically uu update garanayo iyo activity status oo ah hawsha aad wado hataa message haddaad dirto hadal haddaad samayso haddaad call samayso lacag sidoo kale lagu soo diro macluumaadka oo dhan waxa uu ku register garaysan yahay kaadhka aad haysato MSC-ga aad ka soo saartay ayuu ku register garaysan yahay مثلا haddii aad ka dhaqaaqdo goob taasi adigu aad ka iibsatay kaadhka oo macnaheedu ah gees oo kale aad ka tagtay gees oo kale aad kaadhka qaadatay waxaad tagtay oo kale Ayrigabo halka aad tagtay wax loo yaqaan markaasi foreign MSC waxa weeyaan central point MSC oo waxa weeyaan kaadhkaagi waa tower kale oo group oo meel kale ka samaysan ayuu ku update garaysan yahay centerna waxa uu ah home MSC-gii adigu aad lahayd ilaa home MSC auna jirin xiriir matal u sameyn kartid waayo home MSC-ga ayaa update garanaya mar walba location-ka aad joogto iyo activity-ga aad qabanayso iyo service-ka khidmad ee lagu qabanayo ee ay shirkadda ku hayso magacaasi kaadhka aad ka iibsatay marka foreign MSC-gaasi wuxuu toos ula xiriiraa home MSC-ga home MSC-gaasi oo la xiriiraya waxa weeye halkii macallin kaadhka aad ka qaadatay ayuu toos xiriir ula soo sameynaya waayo home MSC-gaasi wuxuu yaqaanaa goobta aad joogto ayuu mar walba update gareeyaa uu yaqaanaa مثلا qof baa ku soo garaacay tusaale ahaan oo kale qof baa ku soo garaacay qofku marka uu ku soo garaaco adiga oo jooga Ayrigabo jooga ayuu Hargeysa ka soo garaacay ugu horeysta toos towerka uguma xirmayo oo toos towerkuna dabeedna uu gudbinayo halka doonaysa telefoonka ee garaacday
waxaynu niri waxa ku qaaday microphone-kii antenadii buu gudbiyey banner number buu bedeshay electromagnetic wave buu haddana uu bedelmay dabeedna toos waxay ugu dhacday towerku markaa wuxuu gudbinayaa home MSC waa halkii kaarkaagu au ka dabaysnaa ee sanadka oo ahayd مثلا hargeysa oo kale ahayd ayuu toos ugu dhacaya dabeedna home MSC-gaasi wuxuu update garanayaa location-ka aad joogto location-ka aad joogto dabeedna towerkii ayaa wuxuu ku tuurayaa goobta aad joogto towerka ugu dhow ee Forum MSC waxa weeyaan MSC center waxa weeyaan cell tower goob kale ay leedahay oo laakiinse au antenada ay ku shaqeyn karayso ayuu kula xiriirsan MSC markaas wuxuu update garayaa subscription location-ka ayuu muddo gaaban ku update garayaa meelaha qaar oo kale مثلا Ethiopia oo kale iyo dalalka qaarkood oo kale sida antenadu ay u taagan tahay ayaa mar walba cell location-ka aad joogto ama cell location-ka numberkiisa uu ku soo baxay meelaha qaarna uu qarsoon yahay imka halkeena oo kale uu qarsoon yahay laakiin tamaaneed waxa weeyaan haddii la qariyay the home MSC-gaas uu haya oo ku haya isagu kolba location-ka aad joogto telefoonkaaga ayaa si automatically u update garanaya oo nadarkii hadduu telefoonku waqtiisan yahay oo kale مثلا marka uu waqtiisan yahay ee aad shito si automatically ayuu update garanayaa cell tower-ka markaa adiguna aad joogto tusaale aan kasoo qaadano مثلا علي ayaa la xiriiray cabdirasaaqna wuxuu joogaa waynu leeyahay hargeysa mar labaad ku celinayo hargeysa ayuu joogaa ismaaciilna wuxuu joogaa oo kale burco cabdirasaaq home MSC buu suuq ahaa hargeysa ismaaciilna home MSC-giisu wuxuu ahaa isla hargeysa laakiin saacadda caarigaa buu joogaa telefoonkii baad garaacday cell tower-kii ayaad gudbisay cell tower-ka home MSC-gu usoo gudbiyey home MSC-giina wuxuu update gareeyey location-kii dabeedna cell tower-ka Forum MSC-ga ayuu toos ugu gelaya halkaasuu dabadeedna qofkii telefoonkii uu ka qabanaya xiriir oo toos ula xiriiraya marka qaab noocan oo kale ah ayay u shaqeeyaan marka aad doonayso inaad update garayso location-ka aad joogto aad ogaanayso waxay ku xidhan tahay home MSC-ga aad joogto ama Forum MSC-ga aad joogtaa cell tower-ka numberkiisa khalaas intaas ayaa kusoo guud ahaan oo kale waxa jira oo kale yar oo kale oo ku darano oo frequency spectrum waxay yiraahdaan baa jira frequency spectrum wuxuu muhiim u yahay modelka marka location wall oo aad joogto oo kamid ah goob ama home MSC ama Forum MSC frequency kala duwan ayay qaadataa taasi markaas waxay ku caawinaysaa qaasi aynu leenahay FC ama frequency spectrum waxa uu caawiyaa laba qaybood ayaa muhiim u yahay frequency slot distribution waxa yiraahdaan oo ama FLD ay yiraahdaan FLD-gaasi waxa weeyaan qof wal oo kamid ah goobtaasi jooga home MSC-gaasi waxa uu leeyahay frequency specific oo u go'an ayuu leeyahay oo ku isticmaali kara iyagaas wax la wuxuu baahay service ku baahay waxa jira qayb kale oo ku caawinaysa oo frequency spectrum-ku muhiim u yahay oo la yiraahdo multiple access techniques ama MAT la yiraahdo oo iyaduna isku wada jirta surface-kii oo waxa la telefoonada inta badan smartphone ayaa marka taas iyadu barnaamijyadeena muhiim inoo maaha laakiin mawduuca macluumaadka la yiraahdo ee markaa aan ka dabageeyay kii hore waxa uu yahay si aynu balhada aynu su'aasha inta badan dadka aynu weydiiyeen aynu uga jawaab lahayn oo ah sidee baad ogaan kartaa saaxiibka halka uu joogo the applications for badan oo jira oo la isticmaali karaa inkasta oo profile services-ka ay ku xiran tahay oo ay wanaagsan tahay inaad toos la soo xiriiro shirkadda secret u gaar ay noqonaysaa laakiin in concept noocaas oo macluumaad noocaas oo kala adkaysata waa mid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كشين طلنا برنامج كل بعض وعن تاورس وسعروش شقيان
iyo social impacts waxa bulshada saameyn ma ku yeelan kartaa mise kuma yeelan karto inagoo dhinacii ka eegana research-yadii aynu samaynay iyo evidence-ka ilaa hadda aynu ogaanay inagoo soo qaadana xagga international iyo xagga local soo qaadana hadda la yidhaahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.